السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب سيتوني شانل سو دواada adduunka meel baa ka joogtaan ay situuni maanta maxay idiin wadaa waxyaabaha halkaa idinkaga muuqdo aan maanta idiin wada waana cheese cake aan ka sameyn doonaa insha Allah tacaala waxyaabaha u baahan tihiin aan insha Allah tacaala nila wadaagaya kadibna jikadaan wada galeynaa soo sidaas ma balantayni halkan waxa igu jiro waa buskudaan soo shiiday wali toora qayb ka mid ah ii dhima sida idiin muuqato buskudka aan isticmaalayo aniga kan waaye dukaanka Lidl kan ka soo gaday kaas aan isticmaalayo maanta waxa ku soo xiga halkan waxa ii yaalo waa lowska shiidan aan ku darsanayo aniga ana iska jecel caraftiisa ka helaa marka asigana wax yar aan ku daraa ma ka badinayo laba qaanda camal aan ku daraya insha Allah tacaala halkan waxaan kala ku haysanaa biscuit ama whipped cream ka u taqaanaba waxa kale halkan ii yaalo Philadelphia insha Allah hal xabiib bar aan ka isticmaalayna Philadelphia ustiga halkan waxa idinkaga muuqdo waa s'more ama subag aan soo dhalaaliyay 50 gram aan soo isticmaalay laakiin insha Allah tacaala qaandadan ku wada cabiri doonaa waxba ka cabsanina oo s'more waxa uu isticmaali doonaa root biscuitka aan soo shiidnay aan ku dhex dareynaa sida uu noogu noqdo wax la saari kara saxankii insha Allah tacaala waan isla arkaynaa sida aan ka damacsanahay halkan waxaan ku haystaa waa vanilla soccer ama carfida macmacaanka asiga halkan ku haystaa qaandada sirta taas aan isticmaali doonaa halkeeda xaba bes halkan waxaan haystaa marka caagi aan ku qasalahay waa laba caag mid waxaan ku soo qasi doonaa insha Allah tacaala biscuit-daha ama si kala whipped cream-ka kan kale tadna waxaan ku soo qasi doonaa Philadelphia asiga ku soo qasi doonaa insha Allah sida aan sameeyo doono ila socda hadda sida idin muuqato biscuitka waxay gacanta ku soo jajabiyay haddii aadan haysanin mashiin dhib ma lahan bac ku shub ka bacdina kal soo qabso maxaa la ka bacdi ku jajabi insha Allah tacaala an laakiin sidaana ay fududaatay maadaama waqtiga uu yar yahay waxba ka baqan bacdina ku shubi kartiin kadibna soo jajabiya wax dhib badan ma baahanba hadda marka sida idin muuqato waan soo xiray waxaan sameeyaa kaliya wax yar soo shiidaya sida idin muuqato biscuitkii sidaas laga rabaa inaad ka soo dhigto insha Allah hadda marka waxaan sameynaynaa subagiya ku dhex dareynaa si oo u noqdo hudud wax saxan ku dhigi karo koo qaanda ay bismillah labo saddex saana badantaba afar shan lix todoba sideed sagaal طبعا wuxuu naqay ikistaas kooy toban qaando hadana sidii aan sameynaya mashiinka hadana mar labaad ku daaraa hadda marka sidii idin muuqato biscuitku wuxuu noqday marka sidaas uu noqday hadda marka waxaan laga rabaa saxankan inaan ku soo shubno aan ku soo dhajino saxankan ku soo shubaynaa sida idin muuqataba hadda marka ku soo wada gudiyay marka waxa sameynaysaa kaliya si fiican leh ku riix dhulka si oo saxanka u qabto waayo hududti wax qoyan whipped cream-kii iyo Philadelphia iyo wixii dhan aan ku soo dari rabnaa soo maaha marka si oo noogu si fiican oo isla eg ugu dhigi leh saxanka هذا سي على سيد كورة فوت وكودجا أسئلة سميلة كذي بنوع سمينا إن في الجيل كان قدينا قبل جيها سي أصفي عن قبل كنت أوصي دعو ودجو أنت كده ديارنا إنه وحيابي كريتون إن شاء الله sida hadda idin muuqato marka waa soo wada dhajiyay biscuitkiisa fiican u soo dhagay markaas ahaya uu qabsada saxankiisa fiican hadda marka waxaan sameynayaa qaboojiyaha gelinayaa
inta aan kasii diyaarsanayno kuwan kale tabiiladala biyaha iyo keerigan iska bixina tabiiladala biyaha iyo whip creamka ama fisba gareedaha ka u taqaano intaan kuwaas kasii qasayno insha Allah taala sameeynaa hada marka waxa sameeynaa Philadelphia iyo fisba gareedadii wiilka marka hada fisba gareedaha ku qasaynaa fisba gareedahana waa 5 deciliter adii waxay ku xiran tahay saxanka inta aad sameynayso qiyaasta inta qof wada tihiin aan laakiin saxanka aan sameynaa saxan weyn waa maantay marka waxaan wada isticmaali doonaa 5 deciliter oo fisba gareedaha hada rabto iska kala yareey kartaa marka sidii muuqata gareedada waa ku soo wada shubay waa qasaa marka sida laga rabo marka inay adkaato lama rabo ayadoo xoogaa yar jilcan oo si fiican aan adeeg u naqanin aan insha Allah ka daminaya waan idin tusaa sida laga rabo insha Allah keenada qaylada idin diidana dhagaha hada marka sidii muuqato waa kaasaa sidaas ka dhigaysa halaas ka badan ka sii dhigto lama rabo hadii kale waxay noqonaysaa inay zaid u adkaato adeeg zaidana ma fiicna insha Allah marka waxa ku soo xijinaynaa hada marka waxa soo qabsaday Philadelphia laakiin saxanka waxa ku soo shubay sokorta budada ku soo shubay sababtoo ah biscuitkii wax sokor ma lahan la dhahay waxa la dhigi jiray tod gareedadina sokor la'aan ay naqanaysa marka wixii dhan waxay isla wada naqanayaan wada sokor la'aan marka ma laga helayo saasa maaha marka wax yar in la maceeyo waayo jiiskeega marka waxaan sameeyay hada halkan waxaan ku soo shubay 1 deciliter oo maxaa la dhahaa oo sokorta budada flow sokorta ama si kale tood qaandadaaniita saddexdeeda xabbe ee naqanaysa insha Allah hada marka waxaan ku soo shubayaa Philadelphia hal xabbe iyo bar aan isticmaalayna insha Allah kale ku soo dareen hada marka flour sokorti waxa soo qabsada vanilla sokorti carfisada oo macmacaanaadka waxaan ku darayaa halkaas qaando bis wax kale ma loo baahno marka wax yar aan isku soo qasaynaa ama mashiinka isticmaal ama sidaan dhib ma lahan sidaan waa sameyn kartaa sokorti iyo waxaan isdhex gelinayaa iyo carfisadii marka si fiican isku dhex galaan waxaan sameeynayaa marka gareedadii hadana ku sii ridaya oo idin tusaa hadii kale ku wareereysaan marka hoo isku geli Philadelphia si fiican isku soo gelinayo sokorti iyo vanilla sokorti kadib isku soo laabanayna hada marka waxa ku soo darayaa Philadelphia iyo isdhex galeen iyo sokorti marka laba qaando oo waxaan ku darayaa looska shiidnay waaye oo laba qaandi aan ku darayaa insha Allah waa kana si fiican isku soo dhex galeen hadii aad rabin looska shiidan waa iska dhaafi kartaa ana jecel caraftiisa saas dadteeda markuu u daray laakiin hadaadan ka helin haskaga darin insha Allah sana isku soo daraa ka bacdina mashiinka isku soo shiidaya ayaga dhan insha Allah hada marka waxa sameeynaa hal mar aan uga dhaxmarnaa si fiican oo isku soo dhaxgal sidii muuqato waxaana soo qabsaday biscuitkii oo si fiican u soo dhagay sida aad dareemi kartiin si fiican u soo dhagay oo ku kor shubeynaa leh ku soo shubnay hada marka saxan kale ku fidineynaa si isla eg u fidineynaa
ekeysiinayna si isla eg oo qurux badan. kadibna waxaan sameynaynaa firinjeerka gelinaynaa qaboojiyaha 2 saacadood waa inuu ku jiraa ugu yaraan oo si fiican u soo dhagaa 2 saacadood ka bacdi aan isku soo laabanayna sida uu noogu soo baxo insha Allah. ما شاء الله تبارك الله هذا سيدي موقته qaboojiyahan ka soo saaran 2 saacadood ka bacdi hadii aad degdegsantaa asleedahay waqti ma haystid waqtigu uu kugu yar yahay hal siro yar ayaan siinaya insha Allah. waxaa sameynaysan qaboojiyaha qaybta barafka geliya 40 daqiiqo qiyaasta camal ayuu soo dhagaaya oo uu soo qaboobaya. hada marka sidii muuqato geedkii aan ka qaadayna marka soo qaadno oo jeedi kartiin sida quruxda badan loo soo baxay. waxay kaamirada idinku soo dhaweynaa waa kaasaha buskudkii iyo wixii andusha ka soo saaray sidaas quruxda badan la isku qabsadeen. ما شاء الله تبارك الله. marka digraqun yar aan sameeynayna kuuna waa jareena. waxaan ka ilaaway digraqunka intaan sameeyo inta aan jarin ka hor laakiin markii aan jara kadib soo xasuustay buskuda soo qabtay waa jarjaroyaa leh ka bacdina geesaha aan ku soo wareejinaya wax weyn ma baahanba laakiin inta aan la jarin ka hor oo ku fiicnaa in la sameeyo anigoo ilaaway aan arkay dib mara laakiin haddana waa la sameey karaa. ما شاء الله تبارك الله. دوشديني markaan soo gooynay sidaas quruxda badan la idin muuqata ayay noqotay. korka waxaan ugu soo shubanay waa karameel. karameelka diyaarka ah isticmaali kartaa haddii kale tudna karameel guri ku sameynaysa insha Allah. maraan iga wadaagaya karameelka anigoo sameynaya keegeen waa kaasaha jabkii aan soo gooyay aan karameelka la mariyay asiga dhamma wada marinin. marka asxaabtiin la wadaaga like-ta commentiga subscribe-ka laga ilaabinina asxaabtiin kala toodna ayagan si ugu faa'iideystaan gaarsiiyay insha Allah taala. waan ku mahadsantiin talooyinkeena fikradiin waa inoo muhiim hoos inoogu reeba insha Allah taala. waan ku mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.